إلهي سبحانه وتعالى وحينو شيغيا إنaynan sinayn kuwa aqoonta leh iyo kuwa aqoonta aan lahayn ma sinna waxa Ilaahay amaanay quraanka kariimka ah dadka cilmiga leh cilmigoodana Ilaahay uga baqa subhanahu wa ta'ala wuxuu Ilaahay leeyahay inma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama waxa Ilaahay khashiyadiisa la yimaada oo Ilaahay ka baqa cabsi dhab ah waa kuwa culumada ah oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala yaqaana عظمديسا يا وينكيسا يا صفاتكيسا يا أسماديسا كواسا جاري كرا تقوى نبطأ إن إلهي كعب صدان سبحانه وتعالى وحا إلهي وينو شيغيا نبي الله محمد إلا اللي يهي إلهي وحا ويديستا إنو علمك كوزيادي وقل رب زدني علما الدنيا زيادة ويديسا الله مدهن وحا النبي قال لي إلهي ويديسو وحا تراهدا ربي وعلمي زيادة ولذلك النبي قال صلى الله عليه وسلم صباح ذي وحو كدو عيسان شري اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إله وحا كويديسان يا علم نافعة يا رزق طيب وحلال يا عمل متقبل أو الله أقبل إله كويديسان صلاة الصبح جدال كذا مركز لا تكدو إلا آخرية السنة أذكارت الصباح إن لقدر أيانا السنة صدق الله وحن النبي صلى الله عليه وسلم تصالك بحيي قفك أقبلي هنونك إلهي النبي محمد للصادري قفك أقبلي وحويان حق قاطي إيه قفك آن أقبلين أيو تصال السمي wuxuu nabigu yiri waxa uu tusaalahoodu uu yahay xaq aniga Ilaahay ila soo diray oo hanuunka iyo cilmiga ah iyo waxa wuxuu la mid yahay roob da'ay ayuu la mid yahay roobkuna dhulka uu ku da'ay baa saddex u qaybsamay midibihii buu celiyay daaqina waa soo saar dadku biyihiina waa ka cabeen daaqiisina waa daaqeen midina biyihii buu celiyay لكن داق ما soo saarin dadku waa ku nacfiyeen biyihii bay ka cabeen xoolihii bay ka waraabsadeen beerihii bay ku beerteen midna waaqiicaan biyana ku celin mahayo daaqna ku soo saari mahayo nabigu wuxuu yiri kaasi wuxuu tusaale la yahay xaqa Ilaahay aniga ila soo diray qofka asagu xaqan aqbalay oo bartay oo xambaaray oo dadka ku anfacay oo baray wuxuu la mid yahay macnaheedu waxa weeyaan roobkaas intuu da'ay dhulkii biyaha celiyay dadkiina ay ku nacfiyeen qofka labaadi waxa weeyaan qof la mid ah bal biyo ku da'een daaq aan soo saarin laakiin biyaha looga nacfiyay waa qof cilmigii asagu xambaaray dadkii ay barahaya asagii laakiin علمي أن كدق مهين وحي علمي كبورنا هي أن لا إيمان هين طاعاتك كبورنا هي أن لا إيمان هين أسوي علمي وهيا سيدي بل بيا هيا نعفقي لكن ضدك ما كان نعفنا يوكا قاضنا يا قفك صدحادي وقف أن علمي قرب مدح عقوق قاعدين أقبلنا هنونك إلهي النبي محمد الله صادري وأقولك قيعانك وبيهن أن كل علنا هين daaqna aan soo saarahayn weeyaan qofka Ilaahay hanuun kan qaatay oo Ilaahay waafajiyay ummadana baray kuna dhaqmay waxa weeyaan asaguna waa liibaanay dadkuna waa ku liibaanay walidaalika baa nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam khayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama waxa in kugu wanaagsan oo in kugu khayr badan qofka qur'aanka barta dadkana bara baritaankaasi waxa weeyaan qur'aankii uu bartay macnihiisa iyo lafdigiisa uu faafinaya waa baraya labadiiba uu isugu daray ama lafdigii buu baray macnihiina meel kale qofkaani ka bartay laakiin qur'aankii uu baray oo faafiyay dadka asaga ugu khayr badan qof qur'aankii bartay dadkana barahaya cilmiga sharciga ah wa huwa al-hadi wa midka qofka hanuuninaya
ودحلك أنبياء نبي يقول صلى الله عليه وآله وسلم أنبياء لقى دحلين درهم يدينار وحال قد دحلي أودتك أي دحل سيان وعلم قفكي قاته دحلك أنبياء وحو قاتي قيب وين أو دحلك النصيب وين بكوياش اللي وحو هايستا قف كان دحلك أنبياء أيوه هايستا ما دام علمي أو حنباري وأنا علماء ورثة الأنبياء كو أنبياء دحلي وعلماء قفك أقوان تلا أو علمي كو دور سنة هيا فافنا هيا وحأد عينها هيا خلق قدن سماواتك أهلك كسوغان يدولك حتى الحيتان في الماء حتى ملايقة بدا كتشرا قفك وأد عينيا حتى قرآن كذا قدك كتشرتائي ويؤد عينيسا وحين إلهي أوي دينيان قفك علمك فافنا يدن بالداف قفك أقونت له قفك إلهي عابد يو أقونت عن الله وكفضل بدنيا سيدا حدقوه أغسر رأي ضيحوا أغسر رأي حدقها أي قفك عالمك أغا خير بدنيا أغا نصر رأي قفك عابدك وأساقوا إسك عبادي سنية علمك وحياة القلوب وكي قلبك كنو لانيي ونور البصائر أرقاق النور كي سويان ولذة الأرواح وكي نفتكر راحي سنة سويان متك عدلة لقوه الشدويان ودليل المتحيرين ضدك وريرسان متك يكوهنوني لها ينوي وميزان كاللقو ميزان علمك أقواشا إيا أفعاشا ضدك أي سمين يان أردن علمي أيان لقو ميزان وهو الحاكم المفرق بين الشك واليقين ومتك كالصارية شكك إيا يقينتا هنونك إيا باددا متك كالبحينها يأو كالصارية وعلمك علمك ومتك إلهي لغو أقوان صدي أو لغو عابدي ومتك إلهي لغو حصو أو لغو وحيدو ومتك إلهي لغو أمان أو لغو مهدي يويان كان كبار يويان إلهي كلي إنا عابدي علمك وحويان متك وضد اللقاضة يكوغين يسجنada متك الله مروي من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة قفك وضق هذا علمي وكد البهيو إلهي وحو ugu sahla sababteed wadada jannada ayaa Ilaahay ugu sahla cilmigu waa midka waxa weeyaan xalaasha iyo xaraamta ku kala saaraya shayga shirkiga ah iyo shayga tawxiidka ku kala sheegahaya sunnada iyo bidcada ku kala saarahaya taacada Ilaahay iyo macsida midka ku kala saaraya weey akhrinta la akhrista cilmiga waa tasbiixda oo kale dalabka la raadinayo la dalbahaya waajihaadka oo kale qofka oo cilmiga la baraa waa sadaqa cilmiga waxa weeyaan dalbidiisa iyo raadintiisa waa qurba ila Allah dhawaansho Ilaahay subhanahu wa ta'ala loo dhawaanayo weeyaan cilmigu waa midka asaga la raaco amalkuna waa matbuuc wa amalkuna waa taabic cilmigu waa qaa'id hogaamiye ah wixii ka soo harayna asaga waxay u yihiin kuwa daba yaala uu hogaaminayo cilmiga baahida loo qabo way ka daran tahay baahida cunnada iyo cabitaanka aan u qabno maxaa yeelay maalintii waxa laga yaabaa hal mar ama laba jeer in cunno u baahatid laakiin cilmiga waxaad u baahan tahay saacad kasta iyo daqiiqad kasta ayaad u baahan tahay ilaahay ina xiriir la yeelatid xiriirka ilaahay aan la yeelanaysidna waxa ku gaaraysaa waa cilmiga cilmigu ma midi waa al-ilmu naafi' waa cilmiga naafica ah midna waa cilmi aan naafic ahayn ee qofkiisa naar u geynahaya midka ilaahay u raaliga ka yahay barashadiisa hadii la barto luguna dhaqmo oo lagu amal falo al-ilmu naafi' weeye ilaahay cadaabkiisa aad uga badbaadaysaa jannadiisa ayaad ku helaysaa carada ilaahay baa uga badbaadaysaa ridaha ilaahay baad ku gaaraysaa shirkiga uga badbaadaysaa inaad ku dhacdid tawxiidka ayaa ku badbaadaysaa oo ku barahaya bidcada ayuu ka badbaadinayaa sunnada ayuu kugu hanuuninayaa cilmigaasi waa cilmiga sharciga ah oo qofka ilaahay wuxuu u abuuray oo qofku ku ogaanayo weey wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun jinni ya insi uma aanan abuurin ba ilaahay yiri illa inay icaabudaan oo i waxidaan ma ahana wax kale uma abuurin
muhiimadii lagu abuuray waxaad ku ogaan kartaa inaad cilmiga aad baratid sharciga ah waana kitaabka iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam dariiqadii salafu saalix iyo fahamkoodii waa inaad ku qaadataa oo aad ku barataa cilmigu wuxuu kaa badbaadinayaa shakiga iyo shubuhaadka maanta la furahayo oo muslimiinta lagu dhex baahinayo oo baraha bulshada la soo dhigayo khatarta ah ayaa cilmigu kaa badbaadinaya